waxaynu u baahannahay inaynu la nimaadno qalbi saafiya iyo niyad wanaagsan qalbi saafiya iyo niyad wanaagsan inaynu la nimaadno haddii aynu ku joogno waxaasaa laygu sameeyey waxaa ayaa dadkaygii lagu sameeyey weligeeniya allahim kama kacayno niman la kulmay Canada jooga oo barawaniya waa taqaanaan barawaniinta soo maaha barawaniintu daaroodna ma aha hawiyana ma aha isaaqna ma aha dad yaroo musaalimiin ay ahaayeen dad yaroo musaalimiina oo tijaarta isaga jira oo aynu marra ku sheegno waa yamaniyiin marra waa Portugiis marba meel baynu ku daadinaa soo maaha mar dawladda Cumaan bay soo raaceen wuxuu ka sheekeynayay markii ay dawladda Soomaaliya ay duntay cankii loo galay ee hablahoodiina loo galay hablahoodii sidii loogu horkufsaday goorma iga sheekeynaya nin Soomaaliyeed baan ahay dawlad Soomaaliyeed ku tirsana wuxuu iga sheekeynaya anoo gurigiisa jooga uu iqadaysiiyey uu galaasaha ii soo shubay keegna ii soo dhigay uu ii sharfay ayuu leeyahay Soomaali nagu sameysay hablahaygii bay kufsadeen xoolahaygii bay qaateen ragaygii bay laayeen maca dalika buu yidhi waa walaaladay waan cafiye waa walaaladay waan cafiye yani subxaan allah wallahi meel bay dhaqaaqday markii intaa yidhi meel bay dhaqaaqday waayo nin intaas oo lagu sameeyo madluuma ilaa hadduu dhaalim yahay ama cadow laba qolo isku dhacay ama laba reero isku dhacay ama laba dawladood isku dhacay waxaan oran lahaa waa natiijada harb waa wax yani waa income kii waa is a normal circumstance waa natiijadii dagaalka laakiin dad iska musaalimiin oo la soo dul degay ayaa saa lagu markaasuu leeyahay walaaladay waan cafiyey waananu cafinay oo maanta waanu ka guursanaynaa waynaga guursadaan waanu la degnay Kenyaanu la joognaa meel kale waxaynu la joognaa Tanzania la joognaa alxamdulillah hadday kuwaasi ina cafiyeen war maxaynu isu cafi wayn isu cafi wayn maxaynu inaku isu saamixi wayn maxaynu u heshiin wayn walaalayaal maxaynu nabar mar inagu dhacay anigu ma diidayo yani subxaanallah ninkii la odhan jiray Nelson Mandela nin madow buu ahaa 10 sannadood buu ku jiray jeel aan loo ogolayn inuu qof bini aadana u taabto yani min tabiicati bani aadam wala ulfa inuu dadka taabto inuu walaalka salaamo yani qofka marka aad jeceshahay waa soo dhawaysaa waa salaanta waa nooc min emotion waxa tusaa inaad walaalka jeceshahay marka aad ka sii jeceshay waa laabta u saartaa marka ka sii jeceshay meesha jirkaaga ugu dareenka badan waa dibnaha waa shumisa waa dhunkataa soma way dhunkana caruurteena wayna shumin waa meesha ugu dareenka badan waa jacayl waa raxma soma yani marka qofkii sida ahaa ee muslimka ahaa inta inagu sameeyay waxaynu u baahanay inuu marka walaalkeeni kii dhaalimkiisa ku sameeyay buu cafiye fama balak anta ya abdullah fama balak anta ya abdullah waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga qaado waxan laabta ku jira Nelson Mandela marka wuxuu yiri caradu iyo xasadku yani wuxuu yiri it's like a poison that you drink and you hope it will kill your enemy. وفيرسس حللي وحول واصن أدوق عبسي أنا ترجينا سيد إنه ولا إنه قفك أو يدلك على عدوك هذيك وصنتي عبي وحنا السنتنا نقول حنو عبي يعني كسرنا على سنة هاي إن دلابان دوني هذول بس دلي يقولي
ما دعيس وينس وذا الظلمين وينس وذا اللاي وينس وذا خلاف سومالد أصل كده بحكو كسر سني خير هبل بره هبل كدولي خير هبل بره هبل ظلمي خير هبل بره هبل لاي والله يسكلب وعينك سهل وهكذا الحياة وحين أبهني ولا الله المركان وأنا النقطة أفراد إنني لهنه عفى الله عما سلف محينه ما تقف سنكر إن كان مانديلا لما كنت قبصة دي ودن كساد أفريقيا كلمة تقول عجيبة وحي forgive but do not forget forgive but do not forget يعني forgive وحوي ويحتمكوا عرضوا ما انتوردن من ما قارن إلهي بابا كله والنبي قال إنه شغل لابد المسلمين يسوع عروضا عمل كوده هي الدعاء دوده هي الصلاة دوده لما إيجابا إلهي ما بقى إيجو لما بقى إيجو نل من ده لو حكي لي هاي forgive but don't forget معنى ذلك وحوجت شيء ده عفي قفكم مسلم كأكله قفك وحكم سمية عفي قال يا مسلم عفي سو قالوا دوك شيء ده يدك كده عباس ده يقول قال مو شيء ده لكن أنا وحنا لي ور المسلمين تي ودك المسلمين ده هاي ولا الله ده يكبو قلدمي سيد علي بن أبي طالب حجري إخواننا بغوا علينا وأول الله ده ونبو قلدمي وأول الله ده نبو قلدمي لكن don't forget حوجت شيء ده مركان هكون عنا the same mistake قالت كي هرا الله قال هكون علينا وحيكون قناة مركان the first point عن شيء أهيد وحين أباهني إني نلني ماضنه تخطيط ونعكسم علماء دي هاري راهي قفرديان جزاهم الله خير فرديان بقلبينيان إلهي سبحانه وتعالى هاو بركايو إن شيخ دكوري تشينيا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله